كل wanaagsan daawad halkan waa ila wareed news hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar like inoo tahay muuqaalada soo gelino dhiirigelinayo inoo tahay waad ku maasantahay la socoshadaada muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qarax culus oo ka dhacay xiral ciidan oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo soo gaartay dhalinyaro Soomaaliyeed warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay qaraxani xoogan oo goordhoweed ka dhacay xiro ciidan oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir taasi oo lagu magacaabo xirada Damaanyo sida ay inoo sheegeen ila wareedyo xasaasi ah oo xilkasa qaraxa oo ismiidaamin ahaa isla markaana uu fuliyay qof isu soo xiray walxaha qaraxa ayaa lagu waramayaa in la beegsaday dhalinyaro qoranaysay ciidamada oo safaf dhaadheer uga jiray ilinka hore ee xiradaasi sida ugu biiraan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wararka ayaa intaasi ku daraya inuu jiro khasaare xoog leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhalinyaradii ku sugnayd goobta sida ay muujinayaan muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ay ku kulantay social media ku dhawaad 20 qofood oo dhimasho ah iyo dhaawac intaasi ka badan ayaa la soo warinayaa waxaana u badan yihiin dhalinyaradii isku diiwaangelinayay inay ku biiraan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xaaladda oo ahayd mid caad ah xagiran waxaa koobneed in la helo macluumaad toos ah oo ku saabsan halka ay wax marayaan maadaama meesha ay wax ka dhaceen ay ahayd xero ciidan oo markaas ciidamadu ay isku gadaameen sidoo kale waxaa goobta si degdeg ah u tagay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaasi oo haatan waday baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen si loo ogaado cid fududeysay iyo kuwa fuliyay weerar ka dhacay dhanka kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga oo ku aadan weerarkaasi qarax ah ee ka dhacay xerada Damaanyo ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ururka al-shabaab ayaa horey sidaan oo kale weeraro qaraxyo ah uga fulisay xerooyin ciidan oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo waaxigeeda waxaana kamid ahaa oo horey ay markaas u beegsadeen xerada wasaaradda nacnac kuliyadda jaalisiyaad iyo xarumo kale oo muhiim ah oo ciidamada cusub ee dowladda Soomaaliya ku biiriyo lagu qoro weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay xaaladda amni ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ahayd mid degan isla markaana ka caaganeed weerarada qaraxyada ah iyo kuwa tooska ah ee al-shabaab waxaana howlgallo joogto ah ka waday ciidamada ammaanka Soomaaliya kuwaasi oo bartilmaameedsanayay goobaha looga shakiyo in al-shabaab ay ku dhumaaleysanayaan ama ay doonayaan inay falal ka sameeyaan qaraxan ayaa waxa uu dhacay xilli dhalinyartu ay ku xoonsanaayeen ilinka hore laga galay xerada Damaanyo ah halkay masiibadu ka dhacday maalmihii u dambeeyay ciidamada ugu badnaa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa isu qoriyay sidii uga mid noqdaan howlgallada lagu doonayo in lagu baacsado maleeshiyaadka al-shabaab oo dagaal xoogan kula jirta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inta badan warshada nacnaca kuliyadda jaalisiyaad iyo meelo kale ayaa al-shabaab hore u weerartay iyagoo beegsanayay dhalinyarta markaasi isu qoraya inay ka mid noqdaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya laamaheeda amniga weli kama soo bixin wax war ah ku aadan weerarkaasi dhacay iyadoo inta badan dowladda Soomaaliya marka weerar caankan oo kale u dhaca isaga aamusta iyadoo aanay jirin xitaa in lagu booqdo ciidamadii dhaawacyada ama markaas dhimashada ay ka soo gaartay qoysaskooda meelaha ay markaas kaga sug yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho